BK oo difaacay Lamine Yamal kadib hadaladii ka dhanka ah Real Madrid. Lamine Yamal oo dhaleecin xoogan kala kulmay hadaladii uu ka yiri Real Madrid, isaga oo ku eedeeyay in mar walba ay garsoorayaasha eedeeyaan, isla markaana ay isku dayaan inay dareenka ciyaarta oo dhan iyagu lagu soo koobo. Wararka gudaha ka imaanaya ayaa sheegaya in qolka labiska ee Real Madrid uu si weyn uga carooday hadalada Yamal, waxaana la filayaa in kabtankooda Dani Carvajal uu la hadlo xidigan reer Barcelona kadib kulanka El Clasico ee Axada. Si kastaba ha ahaatee, halyeeyga Barcelona Gerard Piqué ayaa si degan uga jawaabay dhaleecayntaas isaga oo difaacay Yamal. Piqué ayaa yiri, "Aan ku qaadana Lamine Yamal sida uu yahay. Dabcan way aragnimo ayuu yeelan doonaa mustaqbalka. Hadda waa 18 jir ee ma ahan 38 jir." Isagoo ka hadlayay sida Real Madrid uga falcelisay ayuu Piqué ku daray, "Dhaleecaynta Madrid waa la fahmi karaa. Waxay jeclaan lahaayeen inay iyaguba helaan Lamine oo sidaas oo kale ah." Dhanka kale, halyeeyga kale ee Barcelona Andres Iniesta ayaa sheegay in hadalada Yamal ay xoojinayaan xiisadda iyo xiisaha weyn ee El Clasico ee Axada. Hadaladiis ciyaarta ayay ka dhigayaan mid kulul. El Clasico mar walba waa kulan weyn, laakiin tan waxay kordhisay xiisaha. Barcelona iyo Real Madrid ayaa Axada wada ciyaari doona El Clasico, iyadoo labada koox ay u dagaalamayaan hoggaanka horyaalka. Barqa wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.